بسم الله وادي سلامي دبانتين ورسمة ديجيتال ميديا برنامج كانوا ولا ليالو واحد كذي سواها صوص على أوجي ورتوا مرة دورشة سعتي وحيالها قاركود هدي لقى هالله سوماليدو تبع عديد وحيد أو حوي عد بودن لي هاي سياسي بودن لي هاي ضد بودن لي هاي أحلو كتيرة marka horta taas waa isaga jooji mid kaleeto weeyaan oo doorashadu markay socoto waxaa loo baahan yahay yaraha inaad dhexdhexaad tahay oo aadan lagaa dareemin inaad dhinac u janjeedin dabcan dad waa ayidi ka dhaah oo sharaa'idka iyo kuwa ugu waaweyn adduunka qof siyaasi waa ayidi karaan oo doorashadaas yani war saxaabadeed bay ka soo saarayaan ay ayidayaan horta sababaha awgood ayuu ku baaqay waa ka xumahay inay naga kala go'go'day hase yeeshee dib baan u bilaabaynaa hawlihii aan wadnay qoraal iyo clipka noocaan oo kala ah saaka waxaynu ka bilaabaynaa horta dowladda Soomaalidu yay u shaqaysaa yay wakiil ka tahay soo ma ahayn dal iyo dad inay wakiil ka tahay soo ma ahayn dadka inay xiriir la leedahay soo maaha dadku inay gaari karaan madaxdooda qoraal iyo qof ahaan iyo ballan iyo xafiisyo la yaqaano oo dadku cabashadooda ama waxa ay dareemayaan la wadaagaan soo ma ahayn miyay hadda jidhaa taas maya dal waxaa ugu sarreeya dowlad waxaa ugu sarreysa waa maxay ma baarlamaanba ma madaxweyneha muxuu yahay anigu waxaad leedahay dal hay-adda ugu sarreysa waa dastuurka haddaan dastuur jirin maxaa lagu shaqaynayaa waxaa la dhammaystiri layahay tan iyo waagii dowladihii transitionalka ama kumeelkaa soo bilowdeen dastuurkii ayaa la dhammaystiri layahay mar haddaan dastuurku uusan dhammaystiran oo dalkaas uusan dastuur lahaynna dee dowlad baa jidha ma la oran karaa shaki baa iga jira in la oran karo dowlad baa jira waa iska sheegasho waxaa jira xubno baarlamaan dee xildhibaan markii la yidhaahdo dad buu ka wakiilayay Soomaa dad baa soo doortay dadkaas arrimahooda ayuu maamulayaa meesha xagga dowladdana uu ka qayb galayo sharci dejinta soo maha dee ba xildhibaano aan dadkii la xiriirayn oo dadku la xiriiri karin oo xafiisyo aan lahayn oo hab lagu gaarsiiyo wararka aysan jirin nin soo xushay nin dowlad goboleed madax ka ah soo xushay isagiina dhabarka ka joogtee horta kuwaas baarlamaan ma yihiin aan isweydiinay wax weyn baa inaga khaldan dowladnimada waana meesha haddii lagu weydiiyo maxaa ka khaldan see wuxuu hagaajinaa Soomaaliya nin walba meel buu ku dhufanayaa nin walba qardajeex buu galayaa laakiin waxyaalaha waxaa jira fundamentals ama waxyaalaha udubada asaasiga ah dastuurkaa ka mid ah waxaa ka mid ah dowlad dadka u adeegaysa iyo diintiisa iyo dastuurkiisa waxaa ka mid ah dowladdu inay respond to the public waa inay dadka ay mas-uul ka tahay mas-uulna u tahay waa inay dadka mas-uul u tahay yacni dadku ayaa ugu sarreeya supreme dadkaa ugu sarreeya dadkii haddaan dowladdu la xiriirayn oo u haystaa dadaan waxba ogeyn oo qabyaaladu dulaysatay hadda meeshana innagaa isrignay markaa dadweyne haddaan nahay
oo waxa weeye inta iska dayna waxyaalaha aan waxba faa'iido ku jirin inaynu u soo jeedno dal dhis gobol dhis tuulo dhis waa inaynu u soo jeesanaa oo iska daynaa khuraafaadka siyaasadda fadhi ku-dirirka ah oo meel walba taallo oo aan macnaha lahayn ee aanu madaxdeena kula xisaabtanaa hawsha ay qabanayaan waa inaan fahamnaa in dowlad shaqayn kadha aysan jirin haddaysan dadka wakiilka ahayn ma waarayso waana waxyaalaha ay ka dhutinayso dowlad soomaaliyeed oo dib loo yeelyo marka intaasaan rabay maanta idinla wadaago haddaad wax fikrada haysaaniin dee Warsama Digital Media waa idiin furan yahay aad iyo aad baa u mahadsantahay waan salaamaya